دكتور أدنى آدن إسماعيل أيام maanta deeq soo gaarsiisay isbitaalka guud ee magaaladaasi Gabiley deeqdaasi oo isku jirta qalabka suuxdinta oo loogu talagalay inay ka faa'iideystaan bulshada reer Gabiley ee ku dhaqan mas'uuliyiinta isbitaalka guud ee magaaladaasi Gabiley دكتور رضوان محمد علي أدنى آدن إسماعيل وهذا الكومنال كاسي كجيديسي أيا شرحدين قلب كني أهمية بلارن أولياي قودان بددك كفايدي سنيا أقاسماء قود إسبتالك القبيلة والكاسي هذا الكومن كجيدي أيا أدنى آدن إسماعيل وقابها النقي وحقبتك انت بدن لقرب تاقن قدومي كحييك قبلك القبيلة علي عسى وإسنا هالكاسي هذا الكومن كجيدي أيا يسوق نسيدو كروكم هالنقي مسؤولين وسارة عافيماتك guud ahaanba isbitaalkan gacanta ku haysa iyo doctor Adnى Aadan Ismaaciil oo ku tilmaamay in reer Gabiley garab laxaad la siiso hadii ay noqoto ardayda wax ka barata isbitaalka guud ee magaalada Gabiley waxa maanta safarkan aan ugu nimid isbitaalka Gabiley aan ugu nimid inaanu ku wareejino isbitaalka qalab loogu talagalay qaybta qalliinka oo suuxdinta loogu talagalay qalab kano laba kun iyo 12 isbitaalkayga Hargeysa mid ka mid ah la siiyay sanin qalab suuxin qofka lagu suuxiyo oo la hubo oo isu dheeli tiran hawadii iyo wixii kale qofka looga baahnaa dhakhtarku qalliinkii keligii ma gali karo qalabkaas suuxintu waa ka badh badbaadada iyo xanaanada qofka la qalayo isbitaalka Boorama tababar buu bilaabay waxa inoo soo baxay kaadar suuxiyayaala oo caafimaadka yaqaana oo mid ka mid ah isbitaalkana maanta joogo waxay markaan noqotay markii suuxiyayaashii la helay in hadaba qalabka lagu shaqeyn lahaa in loo helo sanadii badh bay u qaadatay inaan hooyo caruurteedana u kala xigta ma jecla haddaan isbitaal u helo intii kalena ay dayacan yihiin waa yara ma hagaagsana markaanu 8 u helay oo gobol walba xabadiisii aan u helay ayaanu maanta qaybinaynaa hambal yar iyo mahadnaq u diraya cidii tiyaatarkeena hagaajisay sawadii Swiss-ka iyo xasan tiimkoodii iyo jaaliyadii baan aad ugu mahadnaqaya waa tiyaatarka ugu wanaagsan intii aanu maraynay maalmahan tiyaatarka ugu wanaagsan weeyaan ilaashada waxaa intaa raacay laba sanadood oo dambe haddii aynu jiro oo qalabkana uu jiro dayactirkiisa iyo spare partkiisa iyo wixii laga bedelay ka bedelidooda anaga ka faala qaadayna oo ciidina siisaba ka faala qaadaysa in qiimaha ay bahashaas leedahay markii aan soo leedahay inaad inoo ilaalisaan wada ummadeeniba iyo waxaan aynu ugu qabanayaan sida ugu qabanaysan inta gudoomiye naga gudoomo يا القدوم هذه ما نتحلكن قبل في القدومين وإنه كانت مشين كاس عصر runtii wax weyn loogu talagalay qofka la suuxinayo oo shaqaalaha ku tababarana u joogan waan ognahay oo qofku marka uu suuxsan yahay nolol iyo geeri uu dhaxeeya mashiin aad u casri ah oo nooc ugu dambeeyay oo siyaabo badan loo isticmaali karayo ay maanta halkan aad inagu wareejisay aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa jazakallahu khayr waxa kaloo aad ugu mahadnaqaynaa adna sida iyadu oo age-kaasa hooyadeena ay had iyo jeer heeganka ugu tahay in ay dib u dhiska laga soo bilaabo dib u dhiskii Somaliland hawsha ugu weyn ee maanta ay haysana ay tahay hawsha isbitaalada khaasatan anagu haddaan reer Gabiley nahay runtii aad iyo aad meel aad inaga qoran tahay waxay noo soo tababartay laba group oo isbitaalkan ka shaqeeyo oo mulisooyina hablahaasa runtii aad iyo aad loogu reeyay adna aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa jazakallahu khayra ka aad noo keentayna sida aad ula dardaarantay ilaahay idinki waan ilaalin doonaa in Marwo Adnى Aadan Dr. Adnى Aadan ay maanta isbitaalka guud ee Gabiley soo gaarsiisay deeq qalab suuxin oo mishiin casri ah oo aad looga baahnaa guud ahaan gobolka Gabiley waxaan aad iyo aad mar labaad iyo mar saddexaad leeyahay Allah ka jisaysiyo deeqda ma aha markii ugu horreysay ee Marwo Adnى Aadan tiimkeeda suuxiyaasha iyo aqoon-yahanadeedu ay deeq waxbarasho amba qalab amba tacaba ay keenaan isbitaalka guud ee Gabiley aad iyo aad u mahadsan yihiin waa markii aan oran karo
isbitaalka guud ee gabilay oo maanta aan ahay agaasimihiisii tiirarka waxa uu taagay agaasimihii hore ee isbitaalka Dr. Deeq Cumar Xaaji Siciid oo maanta ah hooyada qofka lagu daydo gobolka Gabiley waayo ubaxa maanta aan beeranayno waqtigaana mid aan isbitaalka guud ee Gabiley runtii aqoon far badan ma lahayn haddayna deeqi joodinna maanta halka aan joogo ma gaadhin aad iyo aad waqti Dr. Deeq ugu mahad celinaya waxaan mar labaad u mahad celinaya Allah noo sakhray in maanta adna aadan ay qalabka iyadoo hore noogu deexday ubax aqoon-yahana ah oo maanta wax weyn ka bedelay adeega isbitaalka guud ee gobolka Gabiley aad iyo aad u mahadsantahay mar iyo mastaxab ku maleeyahay Allah ka jisaysiyo waxaan kugu ducaynaa in Ilaahay irdar iyo caafimaad ku siiyo waa Nimcaan Dhiig TV qaranka